sidee ugu shaqaynaysaa nolosha sidaana maxaan sameeyaa ii sheeg waan kuu sheegay weliba marar badan waa maxay waxaan fiiri nafsadaada eeg waa maxay waxaanoo idil fiiri siday u jeexmayaan waxaad xiran tahay dhar raqiis ah haddii aadan ilaalin karin muuqaalkayga ugu yaraan ilaali aniga kayga ha oran wax un ina keen hadda gudaha si aan cunto u cunno lacagta oo dhan waa bixiyey waan ogahay wakhtigan hadda la joogo waxaan raadinaa shaqo waxaan helay wax xoogaa lacag ah iyadana waxaan ku bixiye karo waa inaad heshaa gabar xaaladan oo kale kugu noolaan karto ma awoodi kartid inaad i daryeesho aniga awood uma lihi inaad daryeesho kharashaadkayga waxaad samaynaysaa ruwaayad maalin walba isbuuca dambe waan hubin doonaa waa kuu ballanqaadaa waa og tahay inaan adiga kaa helay waadna og tahay inaan kaligaa ku jeclahay waan kala haraynaa mar dambe dib ha ii soo wacanin فرون واو أذكي هالكان معناها وقت دار يا يو كادم بيس واحد كقول ليست وقت يعني نصيب أما واحد كله حتى أنا جوان قرصدي وأنا أكتهي من كي واحد ومضحكي هاي ماشى واحد ونهلا بشي شن لك وأنا أكتهي واحد يقول لي أنت 500,000 أو ربع إيشك أذكي حد محط قبتها مدني سيدات هاي مدني fiican adiga sidee tahay waan fiicanahay mudane fadlan mudane fadhiiso halkan haa mudane lama kulmin miyaa xaaskeyga mudane waa xaaskeyga Sonia waa mudanaheena oo aan la kulannay maanta ayada maxaaskaagaba haa mudane Sonia waa isla mudanihii aan hore kuugu sheegay oo mashruucan igu gacan qabtay waa mudanahaasi mudanahan waxa uu hore jecel ugu qaaday gabar wax badan laakiin gabadhaas waxay kaga tagtay lacag la'aan waa bay ficneed inay ka tagto mudane maxay tahay gabar nasiib daran mudane waa inay darintaa inay yahay dambiile dhibaatada xanuunka jacaylka alla adduunyadu maxay shaqaatada dambaysaa ma ahayn inaan sidaan u fikiro haddii aan ahaan lahaa qof wadno leh maanta waxaan taagnaali lahaa heer wanaagsan bal eeg qofkii aan shalay kabtayda hoosteeda aan dhigay maanta isaga ayaa lugihiisa hoos joogaa way xanuun badanaa jacaylku la yamalo ninkuu yeelaa u xidhay yarantiisii ku helay yalaal baray oo yamini wuxuu yahay uu yaqaan shayga ugu awoodda badan ee waqtiga waa isbeddelka waxa ugu weyn ee ku soo gala waa guusha jacayl qof qalbigiisu wax micno uma lahan qalbiga wanaagsan waa mid ka weyn wax walba ha isku xanuujin kuwa ka tagay oo isticmaal xanuunkaasi inaad ku gaartid guusha waata kala duwanaanshaha maxaadii la yaabanay markaan ku yeedhi jiray agtaadankayow lahaa maxaadii la yaabanay markaan ku yeedhi jiray